الرحيم. الحمد لله والسلام لله. maanta shirkan jaraa'id waxaan qabtay inaan la hadlo ummadda Soomaaliyeed anigoo baaq u jeedinaya xaq u leh inaan baaq nabadeed oo Soomaalida ay jeediyo anigoo ah Generaal Maxamuud Maxamed Macalin Koronto kamida dowladda Soomaaliya waxaa inta aan kaysan weynay waxyaabaha dhacaya iyo waxyaabaha sida u socdaan xaaladaha dalka duuqar ka dhacayna waxaan furan in laga hadlo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho محمد عبد الله madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho waxaa lagu dhex doortay magaalada Muqdisho waxa uu joogaa caasimadda dalka Soomaaliya waa meesha uu ku shaqeynayay waa ninka kaliya ugu nasiib badan dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha soo maray ee ku dhashay magaalada Muqdisho sheegan karana inuu Muqdishaawi waxa dadka balanbaxaya ama socda ama dadka balanbaxa u socdayana dana ay shalay uga barteen asaga ay raadinayaan ma wax kale raadinayaan ma taasoo ah shalay markii dadka codkooda siiyay iyo dadka balaadir jooga haddaba anigoo eegaya xaaladaha jira iyo wacyiga maanta dalka ka socda taasoo ah in baarlamaankii iyo hay'adihii mataqaanaa sharciga ahaa ee wada shaqaynta laga rabay inay wada shaqeynayeen baarlamaankuna uu yahay hay-addii dhashay saddexdan hay-adooda dowladda u shaqeysa sida sharci dejinta ay kala yihiin iyo fulinta oo ah wasaaraha iyo mataqaanaa maaragtay maxkamadaha intaas waa cadaaladda waxaa la rabaa madaxweynaha inuu isku hayo asaa laga rabaa madaxweynaha waxaa loo dhiibay ciidan qaran oo isku toosan iyo baarlamaanka doorto isku toosan haddii maanta baarlamaankii uu kala daadsan yahay waxay noqonaysaa waxqabadkii meesha yaallay in waxba ka jirin sababtoo ah codkii wax lagu kala bixi lahaa waa nimankaas madaxweynaha marka waxaa laga rabaa baarlamaankii shalay inuu isku hayo ciidankii qaranka Soomaaliyeed joogan isku hayo intaas haddii lagu imaan waayo waxay noqonaysaa fashilaad kuwada dhacday annagoo dhan dadka taageersan oo ugu weyn annaga u horeyno ayaa waxaa noo imaanaysaa magaxumo waxaan soo jeedinaa talo madaxweynaha usoo jeedinayaa taasoo ah madaxweynaha inuu soo farageliyo hay-adaha haysta oo mid ka mid ay xoogayso hay-adihii dowladda ee garka ka gashay ay kala direen baarlamaankii lagu kala diray mataqaana maaragtay baarlamaankii dad gaara maalinba la kala shuuriyo ciidamada qaranka oo lagu tilmaamay qabiil ayagoo ahayn qabiil oo mataqaanaa maaragtay ciidanka qaranka loogu magac daro loo dhiibo madaxweynaha haddana inuu yiraahdo nin ka mid ah la taliyaashiisa oo amniga ciidan qabiil oo gobolka yimid inshaalla uma ogolmanaysa inuu yiraahdo reedooyin u yiraahdo waa wax ku xumaa taas waxay noqonaysaa marka hadduu madaxweyne ka aamuso inuu mid raali u ka yahay noqonaysaa loo arkaya dadka waxaa la rabaa marka intaasoo kale madaxweyne ka jawaabo uu ka soo baxo meeshuu ku jiro ciidankan baaba'aya ee weli taagan arrintii soo baxday ee bannaanka taagan ee beenta loogu sheegayna uu warka galo waxaa igu xiga oo aan rabaa madaxweynaha inaan u sheego haddii arrintan ay naga fashilanto waxay noqonaysaa kulli dad fashilmay dalkan ay noqonaya marka waxaan codsanaynaa madaxweyne inuu ka soo baxo luuqa uu ku jiro ama qolka uu ku jiro si cad dadka wax ugu sheego ma aha madaxweynaha dadka la doortay asaga waaye waxa dalka loo doortay waa isaga hawshii asaga u ilmanay oo awood u lahaa oo awoodiis u siiyeysa taliyaha guud ee ciidamada qalabkeeda waa dad kalaa maamulaya ayagoo dalacsiinaya saraakiisha hogaamiyad ka wada qaaday kabtani u wada dhiibay dhaqan oo mataqaanaa ka jiran ciidanka dhexdiisa aysan ahayn madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa hawsha asaga loo ilmaday oo sharciga u lahaa inaan cid kala qabanin taasaan ka leeyahay waxaa kale oo dhibaato ah dadka u hadlaaya dowladda ee madaxweynaha inay fashilaan raba ama laga uranayo dhibaatada si xalay marka hadlay kale sala ajelle iyo mataqaanaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Geedi dadka baadba jooga waa dad kala qaybiyo waa ama jooga waana record waa qoran tahay wax yaalo waa recordkooda waa la hayaa dadka baadba mugu qancayaan inay dadkaas inta war hadlaan ay ku soo horkacaan dowladda horkacaan waxay abuuraysaa marka waxyaabo hore loo iloobay oo xanuun ah ay soo beeraysaa taasna waxaa loo qaadanayaa madaxweynaha uu raalli ka yahay arrintaas
dadka banaadir ay u qabaan labadan nin oo wax rikoor ku jira wax cusub ma aha umana hadli kara dowladda haddii loo arko dowladda ayagoo hadlaya loo arkana waxay noqonaysaa mataqaana maaragtay dowladdu waxay noqonaysaa maqaar uraya isagoo waxay san kala wada qabsanaya kulli taasna wax saxa ma aha madaxweynaha ma rabna annaga mataqaanaa in oo wax laga sheego ama ihaano loo geysto madaxweyne qaranka waa ninka isku haya calankan jamhuuriyadda aan haysan ninka isku haya waaye waxaa loo baahan yahay in saas isugu hayo waa in gobolladii la isku hayo waa in dalka la isku hayo ila dalka la isku hayaa loo dhiibay haddii lagu arko dadkaas banaadir ay dhibsanayaan oo dhibaatadooda u geysteen oo la ogahay rikoorkooda oo ku feelgaroobeen mataqaana maarkay ku feelgaroobeen siyaasadda dalka in maanta dowladda haddii u hadlaan dadka banaadir wuxuu arkaya cadow arkaya dowladda madaxweynuhu waxaas la aaminsan yihiin ayaa loo maraynaya waxaan markaa eedeynayana ma aha waxa aniga iska alifay oo wax rikoor ah oo rikoor ku jira qof la arki karto waxba ay ku hadleen markaan iyo banaadir waxay ka sameeyeen inay khaalad cagaar ka shira ka sameeyeen maanta dadkooda baaba'aya cadala 96 ku dhimatay may ka hadlaan oo qabiilkooda asdeeray may ka hadlaan macquul ma madaxweynaha in la qadaro ma rabno waxa uu wadana waxa fiican aan wadno waxaan uga digaynaa dadkaas inay cidna matalin cidna ay soo heli karin haddii u hadlaan waxay bilaabaysaa inay boqoto dadkii banaadir jooga inay boqotaan soomaalida waxay tahay calool waxay ku boqotay laguma daweeyo calool waxay ku boqotay laguma daweeyo dadka boqtay kala qabaan hadhow dhexda ka oolaysa adiga madaxweynaha arrintaas waxay aaminsan yihiin in la aaminsan loo maraya marka cali maxamed geedi iyo saar cali jeer dabka ay shidayaan iyo madaxda ay caynayaan waa ka raaligelinayaan sida ra-iisul wasaarihii soomaaliya in la yidhahdo maanta waa nin dalashishay u shaqeeya oo saacad jir yidhahdo wax dulqaadan kara ma aha taasna waa daba joognaa haddaan nahay qaranka soomaaliyeed iyo soomaaliyeedba in loo geysanin shan calanka soomaaliya soo hogaamiyey soo wada calanka soomaaliya in la yidhaahdo shisheeye u shaqaysaa waa wax laga yaqsoodo waaye mana aan ku raacsanin annaga waxaan leenahay madaxweyne cumar cabdirashiid inuu raalli ka aado taas waxaan kaloo ka raaligelinayaa shacbigii la ihaaneeyey iyo xildhibaanadii shalay oo ra-iisul wasaarihii hore yidhi waxay ku dhejiyaan baabuurta qaraxa waa wax lala yaabo haddii baarlamaankii laleeyahay qarax uu dhejiyaa iyo waa al-shabaab nin baa waxaan maqli jiray cunto ka dhargay markuu cuntada ka dhargay baa waxaa dhacday duudka dhabarka qabus u yaqaan ayaa dillaacay wuxuu duudu adaa ku xilhayay ila raashku iska badiyay moogta duudu adaa ku xilhan dillaacdo hadda haddii baarlamaanka la kala diro ya ama la caayo ama aan ihaanayno baarlamaanka waa kii dhalay dowladdan hadda aan taageersanahay ninka dadka dhalo waay haddii ayaga aan cayn ayaga xumayno ama ayaga baabashaaba dhexis ka dhaanno wax soconaya maaha wax socon karana maaha in lagu tilmaamo mataqaanaa dadkii siyaasiyiinta qarankana siyaasiga oo wax qarxinayana oo sheegaya cali maxamed geedina u maleymaa inuu jiro siyaasi dab meel ka odhanaya inuu bedelo marka nin kastoo siyaasi wuxuu raadinayaa kursiga madaxweynaha inuu bedelo marka meel fiican u baayaa maanay meel odhanaysa qof rabta male marka u maleymaa ninka siyaasiga ee tala dalka inuu rabo la wareego u maleymaa inuu dab shidaayo sababtoo ah meeshuu la wareegaya haddii dabka shidan tahay caqli bini aadama waa geedkaa saaranta adoo goynaya camal waa geedkaa saaranta adoo goynaya camal bay noqonaysaa marka ihaanadaasna ayagana waa ka raaligelinaya xildhibaanadaas qaranka iyo siyaasiyiinta lagu ihaanooday cid iyo matalan ma laha waxaa soo haray nimankan culummada markay hadlayaan dastuurka qaranka waa wuxuu ku qoran dadka inay banaanbixi karaan wax la qaban karaan aniga banaanbax ma aaminsan in la banaanbaxo laakiin shacbiga hadday banaanbaxayaan waxay u baahan yihiin ay xaq u leeyihin dastuurkaasa u sheegaya xaqooda qodobka waxa uu sheegaya mataqaanaa labaatanaad ay u sheegaya inuu qof walba xaq u leeyahay inuu codkiisa si aan lagu isreebi karin qabiilkiisa midabkiisa inaan loo rixi karin wuu xaq u leeyahay aniga kan ma qorin waa ku qoran tahay marka waxaa waaye in la ixtiraamo asagoo loo baahan yahay aniga marka midaan sheegayaa wadaadada kan wuxuu u yaqaanaa buug u yaqaanaa shay u yaqaan haddana waa nala hadlayan xulin qodobada hal dhowr ayaan dhow hadda shan waxay leeyahay buug waaye haddii ay leeyihin buug waaye kutubta qur-aankana ay leeyahay mataqaana maaragtay hadda dib lagu labtay mar leeyahay mar ciyaalka aan la diray hadda dalka lagu hayo ee la baabi'inayo waa nima eega ay fogeeyaan laakiin hadda ay dowladda lasii kala fogeeyaan ma aha macquul mid ah ma aha marna ilaa dastuurkan xaashi waaye marna ilaa dastuurka xaashiha lagu dhamayn lahaan waadida kala hadlaya taasaan ka leeyahay waxaa ii soo haray kuwa kale dhaqanka ah imaamkii ugaaska dadkoodii ayaa baaba'aya boqolaal qof aa ku dhimatay qabaa'ilo dhexdooda isdileen dadkay imaamku yihiin waxaa loo duubtay ayagana inay dhaqan iyana loo duubtay ma loo duubanin inay ugaas iyo mataqaana maaragtay imaam inay siyaasagaana looma duubanin dadkooda baaba'aya dadkooda wax ka qabta haddii qaban waayaan ee dadka baaba'aya isdilaya wax ka qaban waayaan ila dhigooda baxay cadal ku baxayaa mugta dadkaasaa loo doortay haddii u qaban waayo waxay noqonaysaa dadku inay ka tashadaan
سياسيين هكذا مكان الله سبحانه إنسان لا يهاي مثلاً حنا لا إنسان كل هاي يعني في الجزيرة وأنا ما جيت ملأ أمسري بلنبح شعبي يعني شعبي من الله يقال لبدو مهم هذيك هي النورتان لو مهم مقالنا كحرم والله أكا هنا دوقاتان بلنبح هذا سنة سنة أو دوقاتان عندنا اللي كنت كده بينين أو عندنا الريحين هنا عندنا بلنبح حقيقي خلاص ولا باين لكن دي قدام بين لأنه غير سياسيين دول شيء شعبنا شيء إن المتقارنة مالك بيرفع باش كده عارف ما كان عصنا يا إلى هذا بلنبحين وكان تصب حقوق اللي إلى قرار قرطان إلى قرطان قرارة وقد بسال يقول يعني تصب قرار تاعي وأكو قرار إن عدكي اللي بيتان اللي كل صعدة أو النمط أحلى أو حج الجبلين إلى الدرين وعند كل سنة يا دي بلنبح 70 سنة سنة يشان وأنا ما جيت السلام عليكم